cabdikariin xuseen guuleed wuxuu ku suntan yahay siyaasiga tanaasulka 6 sano ayaa maanta laga joogaa markii uu qaatay go'aan aan gadaashiyo qofna ku dhiiran 20 bilood oo ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa 32 degmo laga qabsaday al-shabaab laakiin taasi ma joojin qaraxyadii gudaha Muqdisho maanta oo kale 24 May 2014 cabdikariin xuseen guuleed wasiirka amniga ee Soomaaliya wuxuu iclaamiyay shaqo ka tagis si loo helo qof wax ku biirin kara meeshii uu gaarsiiyay hawshii amniga maalintan waxay al-shabaab isku dayeen inay gudaha u galaan aqalka baarlamaanka Soomaaliya laakiin uma suurtagelin qasaaruhuna wuxuu ka yaraaday intii la filayay waxaad la wada socotaan falkii fuliynimo ee maanta oo ay taariikhdu ahayd 24 bishii shanaad 2014 abaar 11 iyo 20 daqiiqo ka dhacay baarlamaanka oo ay nabadiidku ku weerareen xarunta golaha shacabka waxaan ka tacsiyeenayaa geesiyaashii u dhintay difaaca qaranka si gaar ah waxaan u xusayaa dhamme daahir axmed maxamuud oo isku dhigay gaarigii walxaha qarxa waday una horay naftiisa inuu badbaadiyo xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed si walba uu qasaaruhu u yaraa ama 20kaasi bilood goobo muhiim ah looga qabsaday al-shabaab haddana taasi ma joojin xilka tagistii wasiir guuleed oo xilliga loo arkaya mid kamid ah saddexda qof ee talada dalku ka goodo ma jirin cadaadis gaar ah marka loo eego sidii ay u dhisnay dawladda madaxweyne xasan sheekh iyo kaalintii cabdikariin laakiin madaxdii xilligaas joogtay qaarkood waxay u sheegeen adduunka TV inuu ahaa go'aan shakhsi ah oo lagu tilmaamo garasho mas'uuliyadeed wuxuu muuqday nin fahamsan duruufaha ciidanka ee xagga tirada tayada dhaqaalaha iyo saanada waxaana uu si kalsooni leh ugu baaqay garabsiinta qofka bedeli doona muddadii 20 bilood ahayd ee aan xilka amniga dalka hayay waxaa shaki ku jirin inay noo qabsoomeen howlo waaweyn oo waxtar u leh amniga iyo xasiloonida dalka ayadoo xaaladda dhaqaale siyaasadeed iyo heerka farsamo iyo qalab ee aan ku shaqaynaynaba aysan marnaba u dhigmin ka hortagga qorshayaalka nooca cadow ee aan la dirirayn haddaba anigoo tixgelinayo xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka anigoo rajeynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cid alle cidii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed oo garab ku siin doono xilka tagistii guuleed waxba kama bedelin amniga caasimadda waxaan kaloo sii socon garashada siyaasiyiinta ee la xiriirta inuu qofku qaato mas'uuliyadda meesha uu maamulo haddii uu dhibdhaco taas oo ah caado caan ka ah dunida koowaad balse ku adag inta badan siyaasiyiinta Soomaalida hawsha amnigu waa muhiimadda koowaad marka la joogo Soomaaliya 3 sano ee la soo dhaafay qaraxyo waaweyn ayaa ruuxay Muqdisho oo uu ku jiro qaraxii dhacay 14 Oktoobar 2017 kaas oo ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa taariikhda shacabka ayaa si weyn u soo jeediyay dhowr jeer inuu shaqada ka tago Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale oo ah wasiirka amniga ee Soomaaliya laakiin taas ma uusan aqbalin wasiirku dawladuna ma bedelin isna kuma dhiiran inuu naqtiimiyo duruustii guuleed dad badan waxay aaminsan yihiin shaqo ka tagista dhacdooyinka ku gadaaman inay ka dhigan tahay fahamka mas'uuliyadda ku saaran dhaqanka wanaagsan ee dimuqraadiyadda iyo ixtiraamka dawladnimada cabdikariin guuleed oo ah 53 jir ku dhashay deegaanka mustaxiil ayaa sidoo kale arrimo khaas ah kaga tagay xilkii madaxtinimada galmudug waana sababta inta badan lagu arko siyaasi bisil dhiiran oo ku dhac leh guuxa siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa xilligan sheegaya inay macquul tahay inuu cabdikariin xuseen guuleed u soo istaago xilka madaxtinimada ee dalka doorashada soo socota ee 2021 haddaba 6 sano kadib adiga daawanaya warbixintan maxaad ku tilmaami kartaa go'aankii guuleed maxayse ka baran karaan siyaasiyiinta kale ee Soomaalida